qof kastoo kaa tagay maalin buu soo laabanayaa, kan ku xanuunjiyo wuu soo laabanayaa, kan ku iibsaday wuu soo laabanayaa, kan ku qiyaamay wuu soo laabanayaa. laakiin ma og tahay goortay soo laabanayaan? waxay soo laabanayaan markaad joojiso ka fikirkooda. waxay soo laabanayaan markuu bogsado dhaawacyaday kuu geysteen oo aad iska ilowdo. waxay soo laabanayaan markay arkaan adigoo faraxsan la'aantooda. waxay soo noqonayaan markay iyaguna la kulmaan ashqaas khaa'iniin ah. markaas ayay u xiisi doonaan wanaagga qalbigaaga, sidoo kale u xiisi doonaan saaxiibtinimadaadii. waxay soo laabanayaan markay ogaadaan inaad awooddo inaad noolaato la'aantooda, noloshaaduna aysan u joogsanaynin dartooda iyo xitaa qof kale. waxay soo laabanayaan markay arkaan wax kastoo markii hore xaggooda kaa soo raacay markaad ka maaranto oo ay kaa tagaan. waxay u soo laabanayaan si ay kaaga codsadaan fursad kale, laakiin xilligaasi jacaylka ay kuu sheegayaan wuxuu noqon doono wax la iska yidhi oo kuma lahaan doono xiiso gaar ah iyo muhiimadba. markaad kaliga ooyn jirtay iyagu xaggay jireen? markaad wakhtigaaga intiisa badan aad ku bixin jirtay xasuusahoodii oo ay ilintaada soo daadan jirtay, iyagu xaggay ahaayeen? markaad u xiistay ma aadan helin. waana kuwii markii hore kaa balan qaaday inay garabkaaga joogi doonaan oo aysan ku cilayn doonin inay dhintaan mooye. xaggee aadan kadib? qofkii kugu iibsada qiimo yar, wax kastoo dhaca ha u noqonin weliga. naxariis iyo nabadgelyo xagga alle ka ahaatay dushiina ha ahaato walaalayaal.